السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله. soo dhawaada walaalaha soo dhawaada channelkii Shaqlibaan. Waxaan rabaa inaan nila wadaago arrimaheena hore ka duwan. waaga hore waxaan soo dhigi jirnay barnaamijyadeena qisas waanu talaba leh, laakiin waxaan rabnaa inaan nila wadaagno tafsiiru ru'ya, yani fasiraada riyooyinka. maadaama aragnay dad badan walaalaha inay u baahan yihiin in loo fasiro riyooyinkooda ama waxay ku riyoodaan habeenkii. sidaa darteed marka walaalayaal waxaan rabaa inaan 6 riyo aan kaga hadlo barnaamijkayga caawa. 6 riyo inaan kaga hadlo barnaamijkayga caawa ee walaalaha ka faa'iideystaan riyooyinkaas arkay tafsiirkeeda. sidaa darteed riyada koowaad waxaa waa walaalayaal qofkii jimco ku riyoodo asagoo joogo maalin jimca maxay noqonaysaa tafsiirkeeda. saasoo kale qofka ku riyooda asagoo janaaso ku tukanayo maxay noqonaysaa fasirkeeda. qofka ku riyoodo asagoo gaajeysan maxay noqonaysaa fasirkeeda. qofkii ku riyoodo asagoo xajinayo maxay noqonaysaa fasirkeeda. saasoo kale qofka ku riyoodo khiyaano, qof khiyaanaya inuu ku riyoodo maxay noqonaysaa fasirkeeda. sidaasoo kale qofkii ku riyoodo asagoo meed oo haddana la duugayo maxay noqonaysaa tafsiirkeeda. waa 6daas riyo ayaan rabaa caawa inaan ila wadaago si aad uga faa'iidaysataan insha allah. midda koowaad qofkii ku riyoodo walaalayaal asagoo jumco يعني maalin jimce jooga, qofkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala amuurtiisa dhan oo kala daadsaneed ayuu ilaahay iskugu jamcinayaa. sidaasoo kale culeyskii haayoo dhan ilaahay fudeed ayuu ugu bedelayaa. saasoo kale qofkii ku riyoodo walaalayaal midda labaad asagoo janaaso ku tukanayo waxay noqonaysaa tafsiirkeeda. qofkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siinayaa saaxiibo oo wanaagsan oo muttaqiin dadka ilaahay ka cabsado ayuu la saaxiibayaa. sidaa darteed midda saddexaad qofkii ku riyoodo asagoo gaajeysan ilaahay subxaana wa tacaala qofkaas wuxuu siinayaa ama ilaahay wuxuu qofkaas uu la kulmayaa khayr. qofkaas asaabahu khayran wuxuu la kulmayaa khayr. saasoo kale qofkii ku riyooda asagoo xajinayo, qofka asagoo ku riyooda xajinaya waxay calaamad u tahay istiqaama, sugnaansho, qofkaas inuu ilaahay diinta ku sugo. saasoo kale qofkaas wuxuu helayaa wax alla wixii cabsihay oo qof ku jira ilaahay amni ugu bedelaya. sidaasoo kale wixii deen lagu lahaayna ilaahay deynta uu ka gudaya. saasoo kale qofkii ku riyooda walaalayaal qof khiyaanaya camal qof khiyaanaya camal waa tii 5aad weeyaan. ilaahay subxaana wa tacaala qofkaas wuxuu siinayaa garab, haddana qofkii uu ka guuleysanaya ilaahay nasri buu siinayaa. qofkii ilaahay ku tusay qof khiyaanaya. saasoo kale qofkii ku riyoodo asagoo dhintay oo haddana la duugayo qofkaas walaalayaal waxay noqonaysaa fasirkiisa safar dheer uu gelayaa. marka hore safar dheer markuu galo wax maal ma soo helayo. sidaa darteed marka walaalayaal insha allah wix hadda ka dambeeya waxaan ila wadaagi doonaa waqtiyadeena qaar tafsiiru ru'ya, fasiraada riyooyinka. soo walaalaha insha allah markasta riyooyinku riyoodo waxay noogu soo reebi karaan committeega insha allah waan uga soo jawaabi doonaa hadduu ilaah yiraa. marka insha allah walaalayaal riyada waxay ka mid tahay juz min alwaxyi weeyaan, waa qayb ka mid waxyiga. qofka riyo xun uu ku riyo karaa, riyo oo maaragtay fiican uu ku riyoodi karaa. qofka waxaa waaye markuu riyo fiican ku riyoodo waxaa la rabaa inuu u sheego qof tafsiirkeeda gara karo, sida hadhow si xun loogu tafsiirin. sidaasoo kale qofka riyo xun ku riyoodana waxaa waa laba u bannaan inuu qof wanaagsan u sheego oo riyadii si fiican loogu fasiro, ama inuu iska aamuso oo qofna u sheegin oo ilaahay subxaana wa tacaala riyada sharteeda oo ilaahay ka magan galo. midda kale riyada in laga been sheego ma habboona. riyada in laga been sheego ma habboona. هذا قفك رياضة بينك شو يروح حاسة كوريا صو كوريون
maalintii yowmal qiyaamo waxaa la dhihi laba tin isku dhaji, mana isku dhaji karo. saa darteed marka waxaa la rabaa walaalayaal riyadaa ku riyoonaysid waxaa waa riyadu waxay ka mid tahay qayb waxyiga. soo qofka markuu riyo fiican ku riyoodo qof fiicana u sheegto, qofka riyo xun ku riyoodana qof fiican u sheeg ama iska aamus. riyadaasna ilaahay ka magangalo xataa allahuma inaa nacuudu bika min suu ru'ya. riyada ilahay waxaan kaa magangal riyada xun, marka ilaahay sharteedu wuu kaa magangelinayaa, dhibkeedana ma arkaysid. saa darteed insha allah walaalayaal hadduu kaliibkeyga nii soo gaaro insha allah oo ka faa'iidaysataan ee walaalaha kale gaarsiiya si uga faa'iidaystaan. qof alle qofkii oo su-aal qabana committeega ayuu noogu reebi karaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.